dhex fadhiin qof reerka ka dhashay oo inta kuf iyo kac iga soo martay ay ka soo martay hadalladeeda si fiican u dhageysta maanta oo dhan guddoomiyahan beriyo waxaan ku yidhi walaalow 3 mirir igu dar inaan ma tagaan rabaa waxa aad iskugu timaadeen ma ahan arrin dhaqan ma aha arrin cadownimo iyo dad kale maag iyo magaciisa hal arrin baad iskugu timaadeen yaan been laydin sheeg arrintaa iskugu timaadeen waxa weeye arrin siyaasadeed waa arrin siyaasadeed qodobkan laga hadlayo waxaan ka codsan lahaa shirka oo dhan muggiisa qodobka in la siiyo waayo aayaheenna oo dhan qodobkaasu ku ururaya مثل waxaan anigu aaminsanahay horena u aaminsanahay in dulmi badan cadaawad badan cadaalad xumi badan itijaah la'aan fara badan inuu reerkan ku foolleeyahay oo uu kaga soo foolleeyahay walaalihii la dhashay wada la dagaalameen dalka kula wada dhintay shirkan wuxuu xalliyay shirkan allaha ka dhigay qodobadii siyaasadda garxajis la guulaysan waayey nus buu shirkan xalliyay haddii laga dhabeeyo qodobku xalliyay waxa weeye maxaa garxajis bahdilkan ku keenay qodobka koowaad waxa weeye wada jir la'aantiisa wada socod la'aantiisa tala la'aantiisa تفرارق لأنتيسا هنقر حميديسا كلا دومشديسا وزيرو دورنا يا كوين قرحج صودا شركاني هدي داود يا سعيد سيدي إلى هذا مركي هو كبير ولا لا هايين ولا النمضو دي صح loo bilaabo bilowna ma aha waa in la daba socda waxaan aaminsanahay in lagu adkaanayo waxa kale oo dhan hadii midnimadaas laga dhabeeyo inay mid noqoto tala wada leh damqasho wada leh arrin wada leh qiimeyn wada leh ismaqal leh tala leh waxaan aaminsanahay kan habeenkii gudaya kan jeebka shilin yar la siinayo kan madaxnimo loo magacaabayo inuu meesha ka baxayo hadii reerku midaysan